waxaan galay qalad weyn oo aan ka shakiyay hooyada horyaalnimada Yurub oo aan ka shakiyay haddana kooxda samaysay taariikhaha aan hal iyo labadaba lagu soo koobi karayn tan iyo markii dhidibada loo taagay tartanka ugu caalamisan Yurub oo dhan iyo kooxda haysataba jilayga ugu weyn goolaliyaasha Yurub ee Xaaji Karim Mustafa Benzema oo waqti badan isagoo dhoola cadaynaya u sacabtumay saaxiibadiisa Real iyagoo ku guulaysanaya abaalmarinada ugu qaalisan koonkan laakiin haatan la taagan yahayba waqtigii loo sacabtumi lahaa maadaama aysan dhaayaheena qabanaynin geesi dhaafay oo ka hor istaagi kara jaa'isada Ballon d'Or balse qaladka aan galayba iqaabtiisa waxaan ku maray caasimadda Spain halka oo lagu dilay riya sidatay mucjiso oo ay doonaysayba inay ku rumayso xogweyntii England weliba sida ay ku bilaabatay ciyaartan ayaa ahayd mid looga itaarona Real haddii ay ahaan lahayd xag difaac qadhexe ama weerar waxaana isweydiiyay in Real ay ku martigelisay Santiago Bernabeu duul ka yimid duni kale ama jalsidii weliba Real waxay lumisay awood kasta oo ay lahayd 3 gool oo isxigtana waxa ka dhaliyay Mason Mount Rudiger iyo Timo Werner oo loo kac Chelsea dunidoo dhanna waxayba u niyeysatay inay samayn karto dib u soo laabasho taariikhgala laakiin daqiiqadii 80aad hal paas oo maqana joogayaal ka dhigay difaacyada Chelsea waxaa dhiibay macallimka gaaban ee Luka Modric waxaana gool u badalay da'yarka reer Brazil ee Rodrigo hanjabkii Chelsea ayaana halkaasi ka bilowday oo waxaaba mar kale kubad shaqadiisa uu lahaa Vinicius Junior madaxa raga leh ku dhamaystiray Karim Mustafa Benzema wuxuuna sidaasi uu ku soo idleeyay rajo kasta oo Chelsea ay ka lahayd in dib u soo laabasho la yaab leh ay ku samayso caasimadda Spain Karim ayuuna goolka u ahaa midkiisii 12aad uu ka dhaliyo tartanka Champions League isku darka goolasha Cristiano Ronaldo iyo weliba laacibka reer Argentina ee Lionel Messi ayaana wada noqonayaba kaliya 11 gool taa ayaana ku tusinaysa in Karim waqtigan uu yahayba laacib dhaafay oo isaga oo kale aan laga helaynin qaaradda Europa wixii laga baqo oo laga gariiraba Bayern Munich iyadana ugu dambeyntii waxay ku baxday sacabada kooxda Villarreal sida ayuna Unai Emery wuxuu ku xaqiiqsaday in markiisii ugu horeysayba xirfadiisa macalinimo isagoo hogaaminaya koox uu gaaro wareegga afardhamaadka ee tartanka dhagacadaha qaaradda Europa reer Arsenal miyaad la socotaan oo aad daawanaysaan macallimkiinii hore oo ka xaragaynaya fagaarayaasha Europa waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixinadan ilaa iyo dhammaadkooda waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman